mida wasiirada Soomaaliya oo maanta shir jaraa'id ku yeeshay magaalada Muqdisho ayaa sheegay in shirkadaha ganacsi ee ku sugan magaalada Muqdisho ee ajnabiga ah ay ka qaadi doonaan canshuur. Sidoo kale waxay sheegeen wasiiradani in qof kasta ajnabi oo ku sugan gudaha Soomaaliya ay ka qaadi doonaan canshuur ku salaysan qaab sharci ah diidana ay tilaabo sharciga waafaqsan ka qaadi doonaan. Wasiiradan ayaa sidoo kale cadeeyay in 102 shirkadood oo ajnabi ay ka shaqeeyaan magaalada Muqdisho hase ahaatee 9 kamid oo kaliya ay bixiyaan canshuur. Wasiirka warfaafinta xukuumadda Soomaaliya Injineer Cabdiraxmaan Cumar Yariisow ayaa halkaasi saxaafadda kula hadlay. Sida u jeedaan maanta xubno ka tirsan golaha wasiirada ayaa yimid halkan garoonka diyaaradaha Aadan Cadde International Airport oo loo yaqaan Xalane. ujeedaduna waxay ahayd iyadoo laga duulayo baaqi ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre iyo guddiga hoosaadka arrimaha maaliyadda in dhammaan shirkadaha ka howlgala Xalane ama airportka Muqdisho ama Soomaaliya ama ajaanib lala kulmo isla markaana loo cadeeyo inay waajib ku tahay inay bixiyaan canshuurihii ku waajibay ha noqoto canshuuraha shaqaalaha u shaqeeya ha noqoto canshuuraha macaashka ay faa'iidaan iyadoo la og yahay in 157 shirkadood inay ka shaqeeyaan Xalane ilaa ay haddana wasaaradda maaliyaddu ay soo cadeysay in 9 shirkadood kaliya ay bixiyaan canshuurihii ku waajibay. waxa aad loogu adkeeyay lagu celceliyay in dawladda hadda jirta ay ku xisaabtamayso isla xisaabtan oo dhab ah cid allaale ciddii ku waajibay canshuur markii shirkaduhu bilaabeen howlahooda ilaa ay maantana laga doonayo inay si degdeg ah u soo bixiyaan cid allaale ciddii canshuurahaas ku waajibtayna bixin weysana sharciga lala tiigsanayo haba yaraatee inaysan jirin cid ka sareysa sharciga. waad u jeedaan wasiirada maanta halkan jooga wasiirka maaliyadda baa jooga wasiirkii waxa jooga gaadiidka cirka iyo dhulka iyo civil aviationka waxa jooga wasiirka ganacsiga waxa jooga wasiir ku-xigeenkii howlaha guud waxa jooga wasiirka dekedaha iyo gaadiidka badda wasiirka shaqada iyo shaqaalaha marka wasiir walbaba waxa u yimid waxay ahayd in kaalinta uga aadan loo sheego. mid ugu muhiimsan waxay tahay wasiirka shaqada oo aad uga hadlay inay jiraan shaqaale fara badan oo ajaanib halkan ka shaqeeya shaqooyinkii Soomaali qaban lahayn ay qabtaan inaan taas laga aqbali doonin in shaqada qofka Soomaaliga uu qaban karo inaan qof ajaanib la keeni doonin qofka ajaanibka halkan ka shaqeeyana canshuurtii ku waajibtay inuu bixiyo sida uu u bixiyo wadamada kale marka uu joogo. marka runtii waxay ahayd maanta kulan aad iyo aad muhiim u ah lana rajaynayo in isla xisaabtankii ay xukuumaddu hore ugu go'aansatay in la fulin doono. marka aad iyo aad u mahadsantiin. Xerada Xalane ayaa ah meesha ugu badan ee ajaanibta ugu badan ee ka shaqeeya magaalada Muqdisho ay ku sugan yihiin walow airportka iyo dekedana ay ka shaqeeyaan ajaanib kale. Faadimo Sheekh Cabdullaahi Aadan Kalsan TV Muqdisho.